الله u naxariistay waxa halkan lagu aasay Generaal Farxaan Qaroole oo shalay ku geeriyooday meel u dhow deegaanka Basra oo howlgalla ciidamada dawladda Soomaaliya halkaas ay ka wadeen aaska Allah u naxariistay generaalka waxa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya ugu horeeyaan wasiiro xildhibaano saraakiil ka tirsan booliiska Soomaaliya ugu horeeyo taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed Generaal Xijaar iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dawladda Soomaaliya Allahu akbar dhammaan waxa ay la murugeysnaayeen geerida Allah u naxariistay ku timid generaalka waxa ayna aaska oo ay ka soo qayb galeen kadib warbaahinta la hadlay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo sheegay in dilka Farxaan shalay al-shabaab ay u geysteen uusan joojin doonin dagaalada ka dhanka ah al-shabaab oo la sii laba jibaari doono sida uu hadalka u dhigay waxaan rabaa fariinteeda ku xigtaa waxay tahay kooxaha khawaarijtu waxay caadaysteen in ummadda Soomaaliyeed laayaan aysan qofna u turin ilmaha yarka hooyada aabaha sheekha odayga waxaana socda dagaal looga sifeynaya dalka arinta Farxaan taliyaha Farxaan dhimashadiisa ma hakin doonto halgankii lagu xoreynayay kooxaha khawaarijta dalka loogu xoreynayay bal iska daayay waxay sii dhiirigelinaysaa carada ummadda Soomaaliyeed u qabto kooxahaas waayo dad ay jecel yihiin taliyaal ay jecel yihiin iyo wiilal la jecel yahay ayay faragashadeen oo dileen iyo odayaasha hiiraan ku dhintay oday cilmi guura uu ka mid yahay dhammaantood ehelada iyo kulli oo tacsiyanayna waxaana rajaynaynaa insha Allah ta'ala dhiiga taliya Farxaan iyo ciidanka kale ee qalabka sida iyo shacabka Soomaaliyeed ee daadanaya inuu noqon doono kii dalka lagu sifayn lahaa waana yahay waana loo guntaday fariintii madaxweynuhuna maanta way ahayd sidaas waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed ha u soo wada jeestaan in kooxihii waa dabacsan yihiin qaraxyo iyo miino iyo tabar ka dhigteen iyo qof isqarxinaya meeshii u dambeysayna marayaan waxaan leenahay waa la daba tiri doonaa insha Allah ta'ala halgankan waa sidoo u bilowday dhiigaana waxa lagu sifayn doonaa Farxaanna meelo waaweyn baa lagu magac dari doonaa taliyaha hadii Ilaahay yiraahdo aad iyo aad baan u mahadsantiin taliska taliyaha iyo waxaan rajaynaynaa inuu naga gudoomo anigoo guddiga iyo qabanqaabada ee xafiiska Prime Minister ku soo magacaabay wakiil uga ahaa tacsida si gaarana waxaan rajaynaynaa Ilaahay idankiis in ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay u wada guntato qof maalin bay ay rabaan inay gaadaan laakiin hadda halgan xoogan oo wada socda oo shacabkii iyo dawladdii ayaa socday iyo adduunkii in markaan lagu soo gabagabeeyo arrintan saxaafaddana waxaan ka codsanaynaa halganka inay qayb ka noqdaan sidoo kale xildhibaan Yaasiin Fari oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya oo halkan sidoo kale saxaafadda kula hadlay ayaa bulshada Soomaaliyeed waxa ugu baaqay inay qayb ka noqdaan dagaalada ka dhanka ah al-shabaab qoyska iyo qaraabada iyo guud ahaan qaranka Soomaaliyeed oo ka baxay maanta halyeey qaran Generaal Farxaan Maxamuud Aadan Farxaan Qaroole waxaan rabaa inaan dhaho Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha u naxariisto samir iyo iimaan Allah naga wada siiyo waxaan dhihi karnaa waa geeri aad u xanuun badan laakiin waqti qof waliba waqti uu leeyahay asaguna waqtigiisu maanta ku ekaa waxaan leeyahay Ilaahay ha u naxariisto Generaal Farxaan annagana gadaashiisa Ilaahay nama fidneeyo
intaa kadib waxaan rajaynayaa in ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada gobolka Banaadir inay maanta Jenaraal Farxaan wuxuu ku baxay gacanta cadawga asagoo ka dagaalamayo meel ka baxsan gobolka Banaadir ee caasimadda lana dagaalamayo kooxaha argixisada waxaan rajaynayaa in qof waliba uu dareemi doono in cadawgan haddii aan lala diriirin in qof waliba loogu soo galayo gurigiisa waxaan leeyahay iyadoo lala diriirayo oo goobahay joogaan lagula diriirayo hal la dhinto hana la dhaawacmo taasaa sharaf iyo sumcad leh waxaan leeyahay maantay waan jeclayn inuu joogo uu noolaado laakiin meesha uu ku baxay wuxuu ahaa shahiid in qof waliba haddii aaba dhimanayso inaad saas u dhimata habboon marka waxaan leeyahay qof waliba wuu dhimanaa dadka Soomaaliyeed guud ahaan dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay cadawgan islaamka cadawga Soomaaliyeed meelaha looga soo wada jeesto ilaahayna ha u naxariisto Jenaraal Farxaan annaguna waxaan rajaynaynaa inay tan ay noqon doonto tii ay ku soo afjarmi lahaayeen kooxaha argixisada ah oo la dhihi lahaa maalintii la dilay Jenaraal Farxaan oo dhintay ayaa cadow u dambaysay waayo riyadiisii iyo rajadiisa nagala rabeen annaga ka dhabayno oo ka rumayno ilaahay ha u naxariisto samri iimaan Allah naga siiyo si gaar waxaan tacsi u dirayaa qoyska iyo carruurta oo ka baxay Jenaraal Farxaan annagana waxaan u baahanahay in dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dawladda in mas'uuliyad gaar ah la iska saaro dadka ku jihaadayo la dagaalamayo kooxaha argixisada oo ay ugu horeeyaan jananka iyo askarta la dhimatay ee maanta la duugay iyo dadka ku dhimanaya guud ahaan gobolada dalka kuna dhaawacmayo in dadkaas loo heeliyo loona duceeyo lagana qayb galo dagaalka taasaa muhiima waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariisto Jenaraal Farxaan inta la dhimatana ilaahay ha u naxariisto inta ku jirto howlgalkaana waxaan leeyahay ilaahay ha guuleeyo inta ku dhaawacantana ilaahay ha caafiyo taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed taliye Xijaar oo sidoo kale saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in maanta wixii ka dambeeyo halkan oo lagu aasay taliye Farxaan Qaroole loogu magac dari doono akademiyadda Jenaraal Farxaan oo ah halka lagu tababaro ciidamada Haram Cad sidoo kalena xarunta u ah waxaan ugu magac daray xeradan aan maanta joogno oo ah xarunta ciidanka Haram Cad laga bilaabo maanta waxaa loo bixinayaa ama loo bixiyey ama aan ku dhawaaqayaa xarunta Haram Cad ee Jenaraal Farxaan magacaasi qaadan doontaan magacaasaana ugu imaan doontaan si magaciisu uu u noolaado isaga iyo intii la halmaasha daraaday ugu dambeysay aan halkooda joognay wuxuu tusayey ciidanka dhintay uu u sameeyey kaarta u sameeyey uu yidhi hebel 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 magaciisii isaga iyo askarigii la socdayba gabadha xogeynta hadda waxay ugu lahayd waxay ku noqonayaan tiro intay ii sheegtay labadoodii aan ku daray aabay tilmaanta ilaahay ha u naxariisto shakhsi ciidankiisaa jeclaa oo ciidankiisii ilaa shalayto sarkaalkan waxaa lagu gartaa ciidanku xukumaa laga gartaa midna waxaan leedahay ilaah baana dhaafiyey midna ciidankii si aanu maaraynaanu garan weyne ciidankiisaa jeclaa madaxdiisaa jeclayd shacabkiisaa jeclaa magaalada xamar ha laga jeclaa ilaahay ha u naxariisto